Somaliland xaq ma u leedahay inay go'do jawaabteeduna waxa weeyaan maya xaq uma laha Somaliland inay go'do sababta ay ugu lahayna waan sheegayaa runway oo ma garanaysaa 60kii xornimaan helay haddaan Somaliland reer Somaliland nahay waxaanan ku biiray dawladdii Italian Somaliland baan ku biiray oo waxaan wada samaynay soo wada marka loo eego sharciga international looga oranaya dawlad haddii ay ictiraaf raadinayso waa inay markii hore ka samaysantay gumaysigii ka xorowgiisii oo ma garanaysaa markii laga xoroowayay laga helayay ma garanaysaa ay kataliska laba kooxood ma loo ogolaa 80nadii qarnigii 18aad iyo 19aad waxa la oran jiray waa reer Yurub kaliya qarnigii 20aadna wuxuu ahaa Afrika marka Afrika waxa la isku dhacay meeshii xuduud ahaydba in ma garanaysaa dadkii helay ay noqon karaan marka way jirtaa arintaas oo sidaas waa la oran karaa laakiin shuruudda labaadna iyadana waa ka soo baxeen oo oranaysa waa in uu jiraa xuduud go'an iyo dad go'an oo aad xukumayso 3 milyan ee dheeraad 3 milyan bay xukuntaa waa run dhinacaasna waxa kale lagu xidhaa in uu dawladnimo ay sameeyeen hadda wayna sameeyeen oo dawladda hadda ka samaysan Somaliland waa dawladda lacagteedii leh ciidankeedii leh maxkamadeedii leh madaxweynayaasheedii leh la doorto madaxdeeda madax isku bedesho weeyaa waa run ta afraad ayaa ah inay gobonnimo jirto oo gobonnimo qaadati taas weey hadaba ta Soomaalida iyo ta labaad waan sheegi doono labadaas weeyaan ta magaranaysa ana xaq u yeelanayna waxaan ugu yeelanaynaa waxa weeyaan mar haddii uu samaysmay wadan cusub oo markii hore wuxuu danaba ahaa mar haddii wadan cusub samaysmay sharciyadaas oo dhan waxay isbedeleen 1964 markii ay samaysantay oo AU-da ay samaysantay ay wax badan isku bedeleen oo Afrika ku heshiisay xeer la yiraahdo uti possibilities oo as you possess inta aad haysata ha kugu filaato meel xuduudda hadda jirta waqtiga la joogay kama boodi kartid taana waxa loo yeelay waxa weeyaan adduunka oo dhan baad isku raacsanoo in la yareeyo inay soo baxdo dadka go'a qayb wadan oo ka go'da wadankii inay soo baxdo oo laba sharci oo jira oo adduunka ku caamaba la isku magaranaysa miisaama mid waxa weeyaan xaq uu bilaadanku u leeyahay in uu go'i karo in uu cid wax ku darsan karo in uu xataa ku milmi karo oo assimilation waxa la yiraahdo uu leeyahay taas oo territorial rights la yiraahdo waxa taa lagu miisaamo oo trade of looga sameeyaa sharci kale oo oranaya territorial integrity of the states oo inuu state jira uu xaq u leeyahay in xuduudiisii la ilaaliyo oo aan laga go'in sababta taasana runtii aad u xoog badan oo iminka adduunku inkastoo United Nations iyo adduunku ka hadlo human rights individual rights laga hadlo haddana adduunku kama koobna dawladaha adduunka ama ururada adduunku kama koobno qof kama koobna waxay ka kooban yihiin oo unitkooda oo salkooda uu yahay unugoogu wuxuu yahay dawlado states ayaa unitka marka dawladaha xaqooga ayaa laga hadlaa inta badan sidaa darteed laguma dhici karo adduunka sharcigiisu ka gaabsadaa inuu dawlad yiraahdo waa lagu karaa xataa haddii dawlad jilicsan ay tahay lama oran dawladdu ma jilicsan tahay lama oran burburaysa lama oran waxa soo dhaw waxa la yiri dawlad inay jirtay dawladdii Soomaaliyeed ee 64 jirtana waxa loo arkaa dawlad jirtay oo rasmi ah ayaa loo arkaa ta ugu dambaysa ee aad iyo aad au adkaanayso inay Somaliland ku hesho wixii loo oran jiray magaraysa ixtiraafka ku hesho oo adduunku aanu ku dhici karaynin waa ta adduunka waxa la eegaa cid la siinayo inta badan sida Suudaan oo kale waxa la eegaa dadkaasi sida loogu cadaadinayo diintooda sida loogu cadaadinayo aragooga sida loogu cadaadinayo afkooga iyo cid ay yihiin sida loogu cadaadinayo inagu waa run dad badan bay naga dhintay xasuuq badan baa ka dhacay laakiin bayskiisu ma ahayn diin ma ahayn af lagu kala duwan yahay ma ahayn dad lagu kala duwan yahay luqad lagu kala duwan yahay ma ahayn waa dad Soomaaliyeed oo isku mid ah ayaa jira sidaa darteed adduunku kuma dhici karo oo morally ayay ku adag tahay inay kala gooyaan dad isku dad inay kala gooyaan aad buu adag tahay kuma dhici karo sidaa darteed
wuxuu ku soo ururayaa warka kale wuxuu ku soo ururayaa dawlad kasta oo hadda go'aysa waa inay fasax ka heshaa dawladda laga go'ayo ama ha jilicsanaato ama ha jilicsanaanin adaba masaakilka dhacay waxa weeyaan Somaliland ilduuf bay samaysay 1900 iyo imisan haystaa xogaaba ay dhimanay good igu qayl hadii la dhado iga yar jooji marka iga yara waxa la yar hadal baalka khaladka ilduufka ay samaysay wuxuu ahaa very good ilduufka ay samaysay Somaliland wuxuu ahaa 1991 marka ay la soo noqotay tirwan la soo noqonay baashi waxay ahayd burco marka lagu shiray si fiican buu ahaa adeerkay baa ka qayb gal xajdo warsamo oo dadka qaban qaabinayay ee ilaa shirkii boorama kii burco dadkaas oo dhan wada ahaa inta seegtay waxay ahaayeen ka ilduufeen isaga ka wada hadalay waxay ahayd inay yiraahdaan bay ahayd Soomaaliya inta isku imanayso aan ka aamusno wax la yiraahdo goosasho markaasaan ka hadlaynaa markii taa oran weyday ay yiraahdeen waan goosanay adduunku waa gagaxaya oo waxay adduunku u dhan waanigi lahaa unitkiisu ama unugiisu waxa weeyaan state kaasi iyagu la taliyaan United Nations Summit ama igaad ha haato ama ha haato AAU waa unit kaas ay ka hadlayaan marka unit kaas wixii unuga wixii khatar gelinaya ee unstable ka dhigaya ee peace kiisa yareynaya ee xataa jaarkiisa marka daba ay ku wadnayso waxa soo dhan dabcan marka hore argagax bay ka qaadayaan horta taas ugu horeysa waxay ahayd in talabaad halka ay khatarta ku sii heedo waxay ahayd ciriiri bay isgeliyeen meel laga soo noqdaa ma jiro marka tirada waan go'ay meelad ka soo noqoto wadama ma jirto wala maricsin laha waxa Ibrahim cigal markii Allahu naxariistay shirki boorami weynaan la qabtay wala maricsin waxa oran laha aynu shuruudo waaweyn ku xidhno lama oranna waxa lawaan go'ay laga ma noqon karo hadaad ka noqotana wax khaayin baa tahay isna muxuu sameeyay distoor buu sameeyay 2001 uu magaranaysaa dadka ka saxeexay 97 intii footaysay ay ku footaysay oo oranaya ciddii ka noqotaa waa khaayin wadan de madaxweyne kasta meesha yimaada khaayin wadan inuu noqdo ka baqaya kuma dhici karaba inuu Soomaaliland isla markaa maxaa la yiri lama hadli karo dawladda Soomaaliland lama hadli karo waxaan ku mahadinayaa geesinimada uu muujiyay ninka la yiraahdo Silaayo والله بكون يلا بيتبانكي يليه مايا وإن الله هذا الله صوماليا ويو وحي أجادين حدي الله اللي يعترفي حدي كلامه إنه كل انتهاي إن الدولة ده كبجو أيسو وعيرادان أحمد يكو حسين ويقان متروبوليتان ستيت بعد عيد لقى جو أيو متروبوليتان ستيت كواينة كاش أقولاشو أما هجين عسناتو وها هو جامية مجنس هو جامية اللي تو مجنس أما مدوين هاي هو جامية حق بيقول له هو أنا مجنس على الله مركا وقرتي وحن جيس نمو دا إن سلايو وحن قرية إنه برلمان كجي سومالي لان أو يريس هاي أنا كهذا ذكره إن الله ذكر سومالي سداس لبكني لبكني بشي فيبر ورسل حلواتين كذي واقعي شركة وهري لندن لقويش شركة لأورنا لندن لقويش تركيا لقويش جيبوتي لقويش UAE نواقوي داعي haddana wax ka soo baxay ma jiro kii u dambeeyay waa lagu kala yaacayba sababtuna wax kala ma arrimo xiriya jira baxarkii markii hore Soomaaliland isgilisay ahaa 2001 sharciga ahaa lama go'i karo cidii tiraahda waa laga noqday kala go'i waa dambiile goftiga la diraabay dambiilahaas ka baqayayo kama hadli karo arrintaas maxaa sii dhaafsan arrintaas waxa sii dhaafsan kuwa Soomaaliya ka imanayay دستورك أنا قلت يكوي أنسحيان كم بدها والله ممكن الله بيتمنى كوي حرنا يا قلب كيس كواد فقري صدق وحرنا يسا لقما وضع حل كرو كلا جوء ومض الصومالي لقما وضع حل كرو مركب ماشي تجي محل تجيان الله بدي كحول بوا كاس واحد كل ما تمركها ميل بهشيا ما هذا بحالك يا هالكلا هك الله صعدا محل يلي نواكن ورفانا وحلص الصعداء من جنس هوليسي محل يله هذا waxa haboon waaniga ila tahay in aan sameeyno wixii la oran jiray maxaa hadaba la yeelay aniga waxa ila tahay in la sameeyo kow arrimaha soo socda walaalayaal waxa inagu dhacay waa identity crisis hadan Soomaaliland identity crisis baa inagu dhacay waxaan ay sameeyeen wax ay sameeyeen dawladaha aflaxay sida Botswana oo kale ama Tanzania oo kale oo qabiilooyinkii wax ka xurubay wax ay sameeyeen waxay ku dadaaleen inay haybtooda saxaan
oo Soomaali inay yihiin Tanzania inay yihiin Botswana inay yihiin inay maganas marka hore dadka ka dhaadhiciyaan oo loo ku qaadaan oo narrativeska lagu wada hadlayo oo noqdo mid midnimo ka hadlaya aan qabiilo ka hadlaynin aan gobol ka hadlaynin noqdo ayay ku dadaaleen ninka la khama loo oran jiray ee magaranaysa ka madax ahaan jiray Botswana wuxuu isku dayay mar alla markii uu ogaaday in wax khayraad yar la helayo inuu qabiilooyinka ku wareego jifiskii mid walba ka saaxo yiraahdo hadii aynu wax helo faqri baan nahay ma isku darsanaa dadka Maxamuud qaybsanaa dee faqriga wada hayr haaba yiraahdeen waxba kama qabno meeshiisii baa laga helay khayraadka ugu horeeyay dhamaanka ugu horeeyay odayadiisii baa ku kacay jifiskii soo yiri maya waa in anagu lahaana inteeda badan wuxuu yiri waa idinka saxay arintaas waana la wada yeelanaya wadankiina hadda saas ku barwaaqoobay oo wadanka wadamada ugu barwaaqaysan Afrika ayuu ka mid yahay maanta Tanzania Nyerere markuu madaxnimada qabtay sanad buu ka qaatay madaxnimada fasax oo ku wareegayay odayada soo uga dhaadhiciyo inay wada yihiin Tanzania inaanay ahayn reer hebel iyo reer huddo iyo reer kale aanay ahayn inuu ka dhaadhiciyo dadka wayna ka dhaadhacday maantana laba tuulo oo ay jabcada qormo ka dhaxaysiyo qolooyin sameysay cilmi baaris baa isku dayeenay laba yaro tuulo oo midna ku yaalo dhinaca Tanzania midna ku yaalo dhinaca Kenya bay ka qaadaan research waxba la dhexdhigay waxa la ogaaday kuwii Kenyaankii inay ku heshii waayeen iskaraaceen kuwii dhinaca kalena Tanzaniana u aflaxay magalasho xoog sababtuna waxay ma ahayn kuwa Tanzania kan waxa isku arkay Tanzanian kuwii Kenyaankii waxa isku arkeen qabiilooyin Maasai iyo Hawiyada isku wadalaynaay kana loo badiyo kana baashaqaad marka inagu waxaan u baahanahay identity crisis baa inagu dhacay inaan sameeyno taas aynaan isku dayna hadaan ruuqooyiga nahayna walaalkay Maxamed Axmed Siyaano wax kula talanaya talaabada ku wada geesinimadan ku wado hanad laga ilaaliyo dadka in loo akhriyo bahalka ma garanaysaa la yiraahdo narrativeska ah in dadku qabiil yihiin dadku han noqdaan dad Soomaaliland war ama hal go'o ama hal joogay dadku waa inay noqdaan dad Soomaaliland oo siman markaasan ama ummadana wax la qaybsan karaa ama aan ka goosan karaa inta ka horeysa ee identity-geenu yahay reer hebel Soomaalina wax noqon mayso Soomaalilandna waxba noqon mayso farta u taagan jawi ma aburamiyo hawaya jitige la saanud miya joogtaa